gabadhan waa gabar naafa waxaan naafata 18 sano waxaan direelayso waliban gabadhan hooyadad iyo duraysa cirbad aad u qaldan gabadhani ayaa lagu magacaabaa Joel gabadhan yar waxay maleynaysaa xaaladan naafanimada sonkorta inay ku dhalatay balse waa cirbad ay siin jirtay ama daba ay siin jirtay hooyadii gabadhani 18 sano wiligeed ma aysan ka shakin hooyadii waxayna aaminsaneed hooyadii inay dunida ugu jeceshahay maalin Joel waxay isku dayaysaa hooyadii telefoonka inay ku jirto waliban ayadoo isku dayaysaa chocolate inay qaadato aan la ogoleen markaasi ay gabadh waxay arkaysaa wax la yaab leh levelka daawada ay meesha laga rabay in hooyadii magaceeda ka wadato waxay wadataa ayada magaceeda marka la gaarfiidkii gabadha hooyadeed ay weydiisay sababta hooyadiina si degan ay waxay ugu jawaabtay waxa laga yaabaa inuu farmashiistaha qalad sameeyay Joel ayaa markale aamintay hooyadeed laakiin subaxdii xigtay ayada shakiga ayaa ku batay markaas ay go'aansatay inay hubiso daawooyinka kale ee yaala aqalka sare ee guriga markaas waxay adeegsanaysaa qalab ay gacanteeda ku sameysay si ay u gaarto daawada meeshaasi saaran markaas waxay maqlaysaa codka imaanaya erida waliban ah delivery guriga imaaday laakiin markaani waxay moodeysay in la keenay warqadeedii oo laga aqbalay college-ka markii ay isku daydeen in erida furto si lama filaan ah waxay aragtay hooyadeed oo timaaday guriga isla markiiba Joel waxay ku laabatay qolka Joel markaani waxay dib ugu fiirsatay daawadii ku qornaa magaca hooyadeed markaas waxay arkaysaa bubul yar oo haba kuna jira calaamada hoosteeda isla markaasina waxay bilaabaysaa in ay si tartiib ah u bixiso yacni in ay ka fiiqdo xaanshada isla markiiba waxay arkaysaa hoos inay ku qoran tahay magaca hooyadeed markaas ay Joel ogaanaysaa in lagu wajiyo waraaqad cusub si loo qoriyo magaca hooyadeed isla markaasba Joel waxay furnaysaa kombiyuutarkeeda walibana daawada magaceeda iyadoo kiraadinaysa internetka balse internetka lacag muusan ku jirin sidoo kalena Joel habeenkaasi daawada ma aysan qaadan waliban ayadoo ka cabsanaysa markale hooyadeed inay dhibaatayso sidoo kale Joel waxay dareemaysaa arrintan aysan caadiin laakiin hooyadeedna waxay ka daawanaysaa gabadheeda meel mugdi ah marka la gaarana subaxdii Joel hooyadeed waxay ku tiri xal waxaad isticmaalaysaa kombiyuutarka maxaad ka sameynaysaa oo maxaad ka raadinaysaa ii sheeg Joel way dareentay hooyadeedna micna ka leedahay balse ayadu waxay ka dhigtay arrin iska caadi ah waxayna ku dhaaday waxaan ka baaray arrimaha jaamacadda oo kaliya gabadhii Joel ayaa wiil qalbigeeda muusa degan hooyadeed oo beer waraabinaysa markay aragtay isla markiiba waxay bilaabaysaa telefoonka inay ka wacdo farmasiistaha balse nasiib daro hooyadeed waxaa soo idil ka baaran degtay waliban ayadoo digtay shaqaalihii farmashayaalka ayadoona ku tiri daawadaas dil idin weydiiyo ma sheegi kartaan haddii kale waa idin ganaaxaya yacni waxaan idinku dacweynayaa booliiska Joel isla markaas waxay dareentay cabsi aad u fara badan telefoonkan waa iska dhigtay waliban ayadoo kiniiniyaalkii meeshaasi ku daadaadinaysay maalin wali markaas Joel waxay go'aansatay inay wacdo nambar kale waliban ayadoo dhahaysa waxaan rabaa inaad tii caawiso nasiib wanaag waxa ka qabanayni haysta kombiyuutar markaas uu ka caawinaya daawada waxa ay tahay iyo waxa loo isticmaalay micnaheedaba baaritaan dheer kadib Joel markii ay sameysay nasiib wanaag natiijada ayaa waxay noqotay daawada ay qaadan jirtay waliba mid gaduudeed inay tahay mid loo qaato wadnaha eedana wadnaha ma balagayn Joel ayaa markaan waxay dareentay dunideeda inay burburtay sidoo kale waxay isweydiisay sababta hooyadeed u rabto inay naafo ahaato yacni inaysan ka kicin fadhigaan ilaa ugu dambeyn Joel ay qof walba weydiistay caawinaad waliban waxay ka cabsanaysaa inay markaan dhibaatada ku sii weynaato Joel markaan waxay isku dayday inay runta ogaato hooyadeed waxay soo waday film daawasho balse maxaa la keenaya halkaani walibana Joel ayadoo aad iyo aad u tabaalaysa markay soo tagaan film daawasho Joel waxay la kulmaysaa dhibaatooyin fara badan walibana ayadoo la durayo cirbadaas oo ah mid Joel dhibaato weyn u geysanaysa sidoo kale Joel hooyadeed markay soo aadan shaleemada daawooyinka hore u soo qaadatay si ay u ogaato daawooyinka ay siinayso hooyadeed waxa ay tahay markii halkan yimaadaan Joel hooyadeed isku dagaalayaan waliban ayagoo isku dagaalaya waxa ay ku sameynayso gabadheeda Joel waa gabar naafa fadhigana kama kici karto hooyadeed mar walba isku dayaysaa gabadheeda inay cadaadiso haddaba daawada adigana ha ilaabin muuqaalkana like inoo saarto sidoo kale inoo gaarsiiso meel aad u fog gabadhan Joel ah kaliya waxay u dagaalamaysaa ayaa waxay tahay si ay iyadu u hesho xorriyad maxaa yeelay waxay dhibaataysan tahay 18 sano kabaran haddii hooyada ay ku dhawaateynayso muddo 18 sano ah walibana adigoo ka filinay wanaag gabadhii hooyada ugu soo xirtay kore kadibna waxay ku soo baxsanaysaa daaqadani walibana iyadoo badbaadsanaysaa nafteeda isla markaa halkan timaadana waxa ku soo kacay naqaska waxayna ka baqaysaa inay geeriyoto isla markiiba iska gaaraysa Joel markii intaas sameeyso Joel isla markaasna waxay isku dayaysaa inay soo baxsato suuna aad banaanka sidaad u jeedaanba gabadhan waa gabar naafa ma baxsan karto mana socon karto kadib ay isku dayaysaa wheelchair-keeda inay kula soo degto laakiin wheelchair-ka dhulka soo dhacay ayadana way soo taraarixaysaa dhulkan ay ku soo dhacaysaa walibana iyadoo soo gaaraya dhaawac Joel dhibaato walba u adkeysanaysaa kadibna way soo baxaysaa iyadoo badbaadsanaysaa nafteeda kana badbaadsanaysaa hooyada iyada ay dhashay kadib Joel geerida hooyada waxay ka dooranaysaa inuu dili gaarigan isku dhigaysaa iyadoo rabta nafteeda inay ku badbaadsato balse darwalka ayaa markaan qof fiican uu joojinaya gaariga gabadheenu soo wada wuxuu saaraya gaariga balse intuu soo saarin waxay arkaysaa hooyada meel ka soo muuqata kadibna waxay dhaysaa qofkaas waa hooyadii waan ku bari iga badbaadi balse hooyada meeshii meel waxay ku dhisaa gabadheedu xanuunsan tahay walaal waan ku bari iga raali noqo balse isagoo ku diiday hooyada isla markiiba ninka waxay ku diraysaa orbad Joel way u jeedaa markaan waxay dareemaysaa baqdin aad u fara badan guriga aan lagu soo celinaya Joel gabadhii markaan ayadoo halkan iska fadhida waxay arkaysaa feel halkan yaal kadibna soo qabsanaysaa walibana adeega barbaaraysa waxa ay tahay hawartaani ayada dhashay balse feel kamar dhinac kale isku rugaya feelka ayaa wuxuu noqonayaa feelka ayada iskuulka in lagu soo aqbalay dib ay gabadha xanaaq fara badan dareemaysaa walibana ayadoo ka xanaaqaysa hooyadeed balse nasiib daro markaan gabadha lugta ayaa laga xiray ayadoo murugaysa markaan waxay arkaysaa sawirkan yaraanteeda markay meesha ka fujidana markay jirtay 4 sano Joel
waxay ahayd qof caadi u socon kara weyn la yaabaysaa waxaan qaldan markaas ay Joel kaliya isweydiinaysa su'aalo aad u fara badan taasi oo ah maxaa dhacay maxaan iga qaldan balse jawaab walba su'aashaasi waxay noqonaysaa hooyadeed inay dhibaatadan u geysatay muddo 18 sano ah dhibaatadan ay gelinayso sidoo kale waxay ogaanaysaa qoftaan inaysan ahayn hooyadeed oo ay ka soo xaday kaliya isbitaalka sababtoo ah qoftaasi waxa ka geeriyootay gabadheeda kadibna waxay sameynaysaa waxay soo xadaysaa gabadhaan yar oo Joel ah Joel waxay qaadanaysaa daawooyinkeedii oo idil meeshan ay ku fadhiisanaysaa habartan meesha uu soo galaysa walibaneedo iska dhigaysa Joel qof aad u wanaagsan markaas ay imaanaysaa waxay ku leeyahay aniga waxaan ahay adiga hooyadaada markaas gabadha Joel waxay ku leeyahay adiga hooyadeedii mid aniga waad soo xaday waxay ku leeyahay aniga waxaan ahay qofka kaliya adiga dunidana ku jooga wax walbana waa ku ahay wax walbana waa ku sameeyaa adiga waxa taa aniga gabadheeda wayna uga celinaysaa laakiin Joel midaasi kama yeelayso markaas waxay ku leeyahay adiga hooyadeeda ma noqon kartid hooyadeedana sidaan uma naxariis darna kadibna gabadha Joel waxay isku dayaysaa hooyadeed waxay sameynaysaa inay fiirido balse waxay sameynaysaa cirbada eeda ku duri lahayd markaas Joel aad iyo aad u naxaysaa weyn cabsanaysaa walibana ayadoo isku soo xiraysaa halkan waxayna ka baqaysaa markaani nafteeda in la dhibaateeyo kadib ay habartu imaanaysaa waxayna ku leeyahay gabadheeda dhibaato kuma geysanay kaliya balse ayada Joel markaan caadi ay cabsanaysaa waxayna ku leeyahay inaad tisho inaad dhaawacdo inaad wax yeelayso aad u baahan tahay balse habartu waxay ku leeyahay adiga waxa aniga gabadheeda wax walba naati tahay aadna ku jeclahay gabadheeda kaali banaanka soo bax balse Joel midaas kameeliso aad ay u baqdanaysaa dibeen ku leeyahay waxaan cabayaa sunta waan isdilayaa markii hawada idin soo furtana gabadh waxay cabaysaa isla suntii hawada waxay ku qalinaysaa ma midaas sameyn isla markaasna way soo carreysaa waxayna keenaysaa isbitaalka walibana ayadoo badbaadinaysa gabadhaan markaas wuxuu dhahay dhakhtarka gabadha aan badbaadinaysay suntan caloosheed ma aysan gaarin markaas habarta meesha soo istaagaysaa Joel waxay bilaabaysaa fartan inay dhaqdhaqaajiso markaas gabadha nursing waxay arkaysaa gabadh inaysan hadli karin oo soo dhawaanaysaa waxayna ku leedahay qalmiyaad u baahan tahay aydan hay ku dhahaysaa Joel markaana ayadoo wax qorabto xayiira leerka emergency kadibna hooyada meesha imaanaysa waxaan isku dayaysaa gabadheeda inay wado isla markaasba habartii naxariista darneed gabadha waxay soo saaraysaa wheelchair-kan aad ay u soo riixaysaa gabadhana qof walba waxay dareensiinaysaa inuu fahmo laakiin cid fahmaysa wiiraatay ma jirto nursing imaanaysa waxaan la yaabaysaa gabadh meesha ka maqan tahay kadib waxay raaqad ku arkaysaa inay ku qoran tahay hooyo isla markiiba security ugu ceysa markay soo aran security-ga waxay isku dayeen gabadha Joel inay badbaadiyaan habartii markaan baqdin far badan ayaa dareemaysaa waxaan istaagaysaa halkaan walibana ayadoo badbaadinaysa nafteeda Joel markaan waxay go'aansanaysaa marka ugu dambeysay inay tahay oo ay nafteeda riski geliso walibana ayadoo nafteeda badbaadinaysa waxaan isku dayaysaa markaan inay cagaheeda ku istaagto waliba si xawli ah ayadoona ku dhahaysaa adiga kuma baahni adiga kuma baahni markaasna meesha waxa imaanaya booliiska habartii xanaaqis waxaan ku dhahaysaa iga fogaada balse hal xabad ayaa lagu dhufan oo garabka laga dhufanaya markaas ay Joel waxay dareemaysaa markaan in lagu jiro waqtigeedii ugu wanaagsan waxaan lagu soo celinayaa isbitaalka walibana ayadoo socon karta si wanaag gabadhan Joel ah hal sun oo kaliya ay cabtay ayaa waxay badbaadisay nafteeda walibana waxay ku soo celisay sideedii hore sidoo kale waxay ogaanaysaa habartii ayada soo korinaysay inay tahay habar waalan oo maskaxda ka jira markaas waxay keenaysaa isbitaalka waalida walibana ayadoo ku dhahaysaa daawadan adigoo kaliya uga anfacaya isticmaal